السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وحنا كينغ سولفر واحد يقدر ونسان كينغ سولفر برو. King Solver Pro. وهي أصحابتي دقاليقة اسكو سو نقشو نكسن. dabcan waxaad isweydiinaysaa talow gabadhan miyaysan Soomaali ahayn? Talow ma Soomaaliba? Talow kaalay ma ajaanibta kale ee Soomaaliga u eg miya? Ma Eritrean-ba? Ma Oromo? Ma Ethiopian-ba? Ma qabiilkan la yidhaahdo Rendiilaha ee Kenya dega ee Soomaalida u egba? Talow gabadhan miyaysan Soomaali ahayn? Jawaabta gabadhan iyo fariinta aan gudbin rabno waxaad ka dhex heli doontaa muuqaalkan. Fadlan nala joog. Haddii aad tahay daawade ama walaal nagu cusub, fadlan subscribe noo saar, like-na garee, comment-na ka soo bixi, aad ku dhiirigelinayso gabdhaha Soomaaliyeed. Tan kale, haddii aad nala sii joogtay waan kaaga mahadcelinayaa. Dabcan la joogaaga, like saar muuqaalka, comment-na ka soo bixi. Intaa kadib, gabadhan waa gabar barta TikTok-ga ah ku madadaaliso kumanaan Soomaali iyo ajaanib isugu jira. Inta badan waxaa isticmaashaa aaladda TikTok-ga ah, weliba si live ah ayay barnaamijyo ugu soo gudbisaa TikTok-ga. Barnaamijyadeeda 95% waa barnaamijyo dhaqan xun oo isticmaalayso weliba muusig ajaanib ah. Inta badan barnaamijka soo gudbinayso waa muusika oo ay jirkeeda ku dhaqdhaqaajinayso islamarkaasna ay ku niikinayso. Haddaba gabadhan waa gabar Soomaaliyeed. waxba ku walwalin, waa gabar, ama ha ka walwalin, waa gabar Soomaaliyeed. Anaa ku dhahayo maxaa yeelay waxaan kuga cadaynaya inay Soomaali tahay. Marka hore midabka Soomaaliga isma qariyo, waa ka quruxda badan ee ku muuqda. Kan kale labada gacan haddii aanan qaldanayn waxay ku kala wadataa laba calan ee Soomaaliyeed, midna gobol Soomaaliyeed, gobolada Soomaaliyeed ka mid ah, midna calankii buluuga ee Soomaaliga ayay ku wadataa. Haddaba waa cad yahay ama waa caddahay inay tahay gabar ka mid ah gabdhaheena Soomaaliyeed. Dhiigga quruxda badan isma qarin karo. Intaa kadib anshax xumadan ay sameynayso gabadhan maxaa u geeyay? Kow waxaan dhihi karnaa maadaama ay ku nooshahay qurbo, meesha doontaba ha noqotee, hataa Afrika ha noqotee, in dhaqan dooris halkaas ay kala kulantay, islamarkaasna ay ku sababayso in jirkeeda sidan ay u qaawiso. Tan kale waxyaabaha ku sababay waxaa ka mid ah in ay ku raadinayso views iyo daawasho iyo inay qof caan ah ku noqoto intaba. Haddaba fariintaan soo gudbanayno annagu maanta maxay tahay? Ma waxay tahay in aan gabadha jirkeeda wada daawano, mise fariin kale ayuu muuqaalkan xambaarsan yahay? Fariinta uu muuqaalkan xambaarsan yahay walaal waxa uu yahay gabdhaha Soomaaliyeed inay caan noqdaan waxay u soo maraan in jirkoodu ay qaawiyaan. Waxay u arkaan kaliya caannimadu inay ku jirto in jirkooda sida filimkii ama musalsalkii loo daawado, in ay ku xiran tahay maalin walba inay kusoo biiri karaan boqolaal si ay bil ama 2 bil kadib ay ugu noqdaan qof caan ah. Walaal gabadheena Soomaaliyeed waxaan idin leenahay waxaad nagu tihiin kuwa nagu qaali ah. 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ma ahan. Inta qof ama gabdha aad taqaanaan ee Soomaaliya TikTok ku jira oo wada qaawan, weliba dalkii hooyo jooga Muqdisho, Nairobi, Hargeysa, meelahaas oo dhan jooga, weliba dalkii hooyo jooga qaawan, islamarkaana ku raadinaya views. Waxaan aragnaa kuwa markoodii hore fiicnaa ee dadnaa, islamarkaasna lagu caawiyay sida ay ahaayeen, subscribe iyo followers badanna ku helay. Kadib markii ay million ama waxyaabo noocaas ay gaareenna waxaan aragnaa iyagoo isqaawiyey oo dib u halaabay, gadaal ka halaabay. Laakiin waxaa badan kuwa markii hore ku raadiyey viewska in ay jirkoodu qaawiyaan. Walaal fariintayda waxay xambaarsan tahay in gabdhaha Soomaaliyeed ay ka sharaf badan yihiin in jirkoodu ay ku raadiyaan views. Taas waxay la mid tahay inaad jirkaada walaal gabar yahay aad ku raadiso views. Waxay la mid tahay adoo jirkaada ku raadiyay lacag, oo gabdhaha lacagta ku gata jirkooda ee hoteelada jooga aad markaa iyadahay aadan waxba dhaamin, malaheed aad iyaga kasii xun tahay. Maxaa yeelay iyaga waxa arkay kaliya qofka jirkooda isticmaalaya, adiga waxa ku daawanaya malaayiin kala socota aaladan TikTok-ga ah marka ayaad isticmaalayso nooceeda waxa noqotee. Walaal waxaan kugu soo gaabinayaa fariintayda ugu horeyn alla weyne ka cabso. Tan xigta dhaqankaada, diintaada ilaali. Tan xigta dhaqankaada ilaali. Tan kale sharaftaada ilaali oo dhowr noocaan mar kale walaal ha u dhaqmin. Gabadhan waxaa leenahay Allah soo hadayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.